السلام عليكم walaalayaal weli waxaan wadnaa maanta waxaan bilaabaynaa casharkii shanaad wuxuu ku saabsan yahay waxaan programmingka marka PHP ama all programming loo isticmaalo oo la dhaho if statement marka if statement badanaa waxaa loo isticmaalaa in xaalad lagu qiimeeyo macnaha tusaale ahaan waxaa laga wadaa for example programkaaga hadduu doonayo inuu wax qiimeeyo mar walba waa muhiim inuu isticmaalaa xaalad uu ku qiimeyn karo waxaas laba arrin mid jirta ama mid arrin jirta mideed marka PHP if statement waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo xaalad uu programkeenu doonayo inuu qiimeeyo haddii xaaladaasi noqoto mid jirta ama run ah kadib programku wuxuu fulinayaa tallaabo la xiriirta marka tusaalaha hoos ka cad sida aad ujeedaan xaaladda annaga aan doonayn hadda inaan qiimeyno waa meeshan waxa aad uga jeedaan xaaladda aan qiimeynayna waa taas waa magac wuxuu la mid yahay cabdi marka xaaladdan qiimeynayna waa taas haddii cabdi uu magaca uu sax yahay oo cabdi yahay then waxaan leenahay screenka waxaad ku qortaa cabdi waa wiil dheer marka taas waxay ku tusaysaa situationka if haddii magaca aan haynaa uu yahay cabdi then waxaad ku tiraahdaa meesha screen ku qortaa cabdi waa wiil dheer marka conditional statementkii macnihiisu waa saas bal haddaynu sharaxno oo sii wadno inaan sharaxno marka bal hab aan ku sharaxi karnaa jirto mise xaaladdan qiimeynaynaa waa taa meesha uu maaragtay bahalka dhagdhag leh oo ah halkaa ku qoran kan kaloo xaaladda aan rabnaa inaan maaragtay aan tusno conditionka markuu sax yahayna waa tan ku qoran halkan meeshan oo meesha cabdi waa wiil dheer ku qoran tahay marka muhiimad waxaa labada fallaarood oo aad ujeedaan oo meesha ku qoran oo ah yellowga kan kore oo dhinaca bidixiga waa xaaladda uu programkeena qiimeynayo then haddii xaaladaas run tahay then programkeeni wuxuu fulinayaa shuruudihii codeka uu fulinaya oo ah if name uu la mid yahay cabdi then echo cabdi waa wiil dheer marka waa inaan programka screen ku qornaa waa wiil dheer marka conditionkan if statement waa hal situation haddii hal situationkaas uu sax uusan ahayn then screenka waxba laguma qoraya programku iska aamusaya marka muhiim wey inaad fahamtaan especially diagramkan meesha ku qoran macnaha sawirkan meesha ku qoran oo ah xaaladda la qiimeynayo maxay tahay name waxay la mid yahay cabdi haddii xaaladaas run tahay shuruudda programka fulinaya maxay tahay cabdi waa wiil dheer marka haddii xaaladaas cabdi uu noqon waayo then screenkii wixii aan ku qori lahayn kuma qori karno because xaaladii shuruuddii programka uu jebiyey oo cabdi magaciisu ma noqon marka tusaale soo socda ayaanu arki doonaa si aan usii fahmno waxaa kaloo jira PHP wuxuu leeyahay waxa la dhaho if else statement wax kale maaha laba xaaladood marka PHP if else statement waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo laba xaaladood midkood oo uu programkeenu doonayo inuu qiimeeyo haddii midood noqoto mid jirta ama run ah kadib programku wuxuu fulinayaa tallaabo la xiriirta xaaladda runta ah haddii kale programku wuxuu fulinayaa xaaladda kale marka muhiim waxaa laba xaaladood aan qiimeynaynaa markan awal waxay hal xaalad baan qiimeynayna oo leenahay haddii magacu cabdi yahay noogu qor meesha cabdi waa wiil dheer hadduusan cabdi noqon magaciidan wax screenka lagu qoraayo ma jirto hadda xaaladdan halkan aan qiimeynayna oo else statementiga wadataa wuxuu yahay labada xaaladood haddii xaaladdu kan hore noqon weyda waa inuu kan labaad noqdo ma fahamtay mid xaalad mar walba xaalad unbaa sax marka taasna waa arki doonaa haddii ilaha yidhaahdo tusaale diagramkan macnaha hadda tusaale waxaan qiimeynaynaa haddaad programkan fiirisid macnaha tusaale if magac wuxuu la mid yahay cabdi echo cabdi waa wiil qalbi furan waxaan leenahay hadduu magaca meesha ku qoran uu yahay cabdi then cabdi waxaan ku magacaabina inuu yahay wiil qalbi furan haddii kale else meeshay ku qoran tahay halkan hoose oo else ku qoran yahay then macnaheedu wuxuu yahay waxaan rabnaa message gooni inaan ku qorno screenka si aan u fahamsiino xaaladii markii hore aan qiimeynayna inay ka duwan tahay xaaladii hore marka labada exampleba dhinaca ingiriiska dhinaca soomaaliga waa isku mid marka muhiimaddu waxay tahay meeshan waxaa haysataa laba arrimood ayaad qiimeynaysaa arrinta hore oo ah hadduu magacu yahay cabdi waxaan ku qoraynaa screenka cabdi waa wiil qalbi furan haddii arrintaas cabdi uusan ahayn ama cali yahay ama caashe yahay ama maxamuud yahay ama faarax yahay ama jaamac yahay then waxaan ku qoraynaa cabdi waa wiil qalbi furan wax kale magac wax cabdi la xiriirin baan ku qoraynaa aan ku saabsanayn fahamtay marka dib male muhiimaddu waxay tahay inaad fahamtaan marka waa iska tusaalaha adaa bedeli kara marka saad jeceshiin marka haddaan fiirino sida loo qiimeeyo if else statement xaaladda la qiimeynayo waa meesha falaartu ay dhagdhag leedahay xaaladda hore
haddii shuruudda programka fulinaya ay tahay xaaladda hore then kaas weeye. marka haddii kalena waxay noqonaysaa fallaarta hoos ujeeda oo ah cabdi waa wiil qalbi xiran oo something wax saasa. waxaa laga yaabaa macnaha exampleka inuusan example maaragtay qurux badan ahayn, laakiin xikmadda meesha ku jirtaa waxay tahay inaad fahamtaan xaaladda la qiimeynaya inay tahay name cabdi. hadduu cabdi yahay then waxaan qoraynaa meesha ku qoraynaa cabdi waa wiil qalbi furan. haddii uusan cabdi ahayn marka xaaladda kale oo aan qiimeynaynaa waxay tahay in cabdi uu yahay wiil qalbi xiran. marka arrintu waxa weeyaan intaas way muhiimad inaad fahamtaan. kii hore hal xaaladaan qiimeynaynaa, kan dambe waxaan qiimeynaynaa 2 xaaladood. marka insha allah waa sii soconaynaa. tusaale iyo waxbaan rabnaa inaan sameyno, marka aan dhex galno tusaalayaashaas. waxaan abuurayaa file cusub. filekaas cusub waxaan ku magacaabeynaa, waxaan dhexda dhan oo iska tirtiraynaa. marka insha allah waa file cusub. marka waxaan ku save garaynaynaa ilaahay yiraahdo. waxaan ku save garaynaynaa if statement. if statement.php aan ku save garayno. then marka aan ku qorno meesha bal magac aynu qorno. magac wuxuu la mid yahay cabdi semicolon. marka waxaan leenahay if magac uu la mid yahay cabdi, then waxaan rabnaa inaan ku qorno screenka inaan ku qorno echo, inaan screenka ku qorno anagoo leh cabdi waa wiil dheer. tusaale waa iska example. marka ujeedada xikmadda meesha ku jirta aan raba inaad fahamtaan waxay tahay magac wuxuu la mid yahay cabdi. marka waxaan qiimeynaynaa waa variablekii php-ga ahaa oo aanu ku save garaysana magacii cabdi. haddii magaca uu yahay cabdi dan waxaan rabnaa inaad screenka noogu qortid cabdi waa wiil dheer. marka bal aanu save garayno. haddii la yiro control s ayaan taabtay. marka bal aan isku dayo inaan programka ku point gareeyo maaragtay aan dhaho localhost. okay kaydka then waxaan ku qoraynaa if underscore statement .php. so saad halkan uga jeedaan macnaha labada programka markaan side by side isku barbar dhigo saad uga jeedaan waxaan qiimeynaynaa magaca cabdi. marka screenkii waxbaa ku qormay. sababtu waxaa meesha ugu soo qorantay screenka waxaan meesha ugu soo qormay wax kale maaha. magaca aan qiimeynaynaa waa cabdi, waa magac jira. bal maxaa dhici doona haddii magaca cabdiga aan ku bedelno wax kale. masalan kasoo qaad aan ku bedelno cali. aan ku bedelno bal cali then aan save gareeyo. magacaan qiimeynaynaa cabdi maaha animo. marka qasab waxaa screenka wax kusoo qormaya ma jirto because xaaladii aanu qiimeynaynay xaalad jirtaba maaha. magacaan raadinayna waa cabdi. duse cabdi meesha jiran waa cali yahay then waxba screen kuma qoray. haddaan dhaho refresh saad ujeedaan macnaha waxba meesha kuma soo qorsamin. marka muhiimadda waxay tahay inaad fahamtid marka xaaladad qiimeynaysid. haddii magac uusan magac jira ahayn magac ileen cali aan noogu save garaysan hadda. marka horena cabdi baan ku save garaysanay. meesha cabdigeeda ayaan cali ku bedelnay then screenka waxba laguma soo qorin. marka qiimeynta if statementka lagu sheegaa waa intaas. sidoo kale haddaan rabno inaan sameyno masalan kasoo qaad hadda file kale aan sameyn karnaa oo ah masalan control copy. waxaan sameynayaa file kale oo new file ah bal aan save gareeyo. marka filekan waxaan ku save garaynayaa bal waxaan oo dhan naga tirtiro bal aan iska dhaafno kaas. marka aan save garayno marka hore kan wuxuu wataa fileka tusaalahan hadda rabo inaan tuso waxa weeyaan waa if underscore else statement. okay if else statement.php.
marka bal aynu raacno oo xoogaa yaroo code aan qorno aan dhahno marka aan dhahno if magac uu la mid yahay horta cabdi aan ku qorno because tusaalihii aan isticmaalay cabdi waa soo maahan marka kana aan sidoo kale ku bedelno marka aan dhahno cabdi marka waxaan leenahay if magac uu yahay cabdi then waxaan leenahay echo kani waa cabdi okay markaad else statement samaynayso remember mar alla markaad isticmaalaysa if statement waxaa muhiima in labada qaansadood dhexdooda aad conditionka aad qiimeynaysid aad ku qortid kadib marka labada qaansadood kan ugu dambeeya aad xirtid oo kan ah then waxaad furaysaa labada bracket waa muhiim haddaan labada bracket aan ka bixiyo meesha programku wuxuu itusaya wax la dhaho syntax error muhiim waa inaad fahamtaan marka conditionka la qiimeynaya muxuu yahay magac wuxuu la mid yahay cabdi bracketku muxuu yahay bracketku waxaan dhex gelinaynaa wixii aan rabnay inaan screen ku qorno marka hadda waxaan qiimeynaynaa else soo maaha elsku laftigiisa wuxuu wataa laba bracket intan waxaan ku qoraynaa marka waxaan leenahay echo kani cabdi ma aha marka haddeer bu waxaa muhiim inaan macnaha qiimeyno marka waxaan qiimeynaynaa waxay tahay waxaan leenahay magac ayaan declare garaynay magac wuxuu la mid yahay cabdi haddii magac uu yahay cabdi screenka noogu qor kani waa cabdi haddii kale uusan magaca meesha aadan faham uusan qoraankiisu ahayn cabdi ama wax kale yahay ilan waa bedeli doonaa exampleka then waxaa noogu qortaa kani cabdi ma aha aan kala hormarino soomaaliga waa balaaran yahay kani ma aha cabdi okay marka wal aan save gareeyo control s aan ku point garayno marka asna sidoo kale sida kii marka hore aan samayno oo kale marka kani waa program cusub marka statement if else statement.php if else statement.php saad ujeedaan waxa meesha kusoo qorsamay waxay tahay kani waa cabdi because magacaan qiimeynayna waa magaca jira waa cabdi ila cabdi ba magac maxaa noogu save garaysan waxaa noogu magaca ereygan magacan waxaa noogu save garaysan ereyga cabdi marka waxaan programku uu sameynayaa wuxuu leeyahay haddii magacani uu la mid yahay cabdi ilan cabdi waa kan annagaaba ku save garaysanay then programku wuxuu leeyahay waa inaad ku qortaa meesha screenka kani waa cabdi run haddii kale uusan cabdi ahayn waa inuu noo qoraa kani ma aha cabdi marka hadda kasoo qaado kan oo kale haddaan ku bedelno caasho programkeena wuxuu qiimeynayaa wuxuu raadinayaa waa cabdi hadduu cabdi waaye wuxuu qorayaa jawaabtii kale uu hayo oo elsiga maaragtay alternative ka ahayd markaan control s garaaco oo haddaan screenka furo aan dhaho refresh ku sameeyo soo ma jeedid wuxuu ii qoray alternativekii kale oo ah ama arrintii kale laba condition aan qiimeynayna condition wuxuu ahaa haddii magacu yahay cabdi noo qor kani waa cabdi haddii kale uusan cabdi ahayn oo ah xaaladda hadda aan ku taaganahay then waxaan iri screenka noogu qor kani ma aha cabdi saa ujeedaan wuxuu noo qoray kani ma aha cabdi marka muhiim way inaad fahamtaan bal exampladan isticmaala waxaan aniga meesha ku qoray videoga istaaji tijaabiya marka insha allah ilaah idinku sanaanan doontaa marka waxaan isku arki doonaa casharka dambe soo socda insha allah waa mahadsantihin